بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. horta ilaahay baa mahad leh maanta aan u joogno munaasabada furitaanka masjidkan barakaysan kaasi oo aan horta ilaahay ugu mahadnaqayno mar labaadna aan ugu mahadnaqayno ka bacdi haadi maxamed al-mansuur oo ah shakhsiga ku tabarucay ilaahay xasanaadkiisa ha ugu biiriyo ilaahay miisaankiisa ha ugu siyaadiyo إذا لا عندي كشقيسي مؤسسة كشقيسي iyadana aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan rajaynaynaa masaajidkaasi maadaama uu ku yaalo meel baahideedu aad u badan tahay garoonka badeed baa ku garab yaalla oo ay ku ciyaarto galabtii oo salaadu ay ku dhaafi jirtay waxaan rajaynaynaa markaa masaajidkaasi inuu daboolo baahiyaha cibaado aagan oo dhan horta masaajidkani waqtigii munaasibka ahaa buu dhismay meesha ku habboonaan uu ka dhismay waxaan ilaahay ugu baryaynaa inamadii jagada bixiyey iyo kuwii dhisaba in ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro marka hore ugu ducaynaynaa marka xiga meel munaasib uu ka dhismay oo halkan waa garoonkii kubadda boqolaal ka ciyaariyo boqolaal daawadaba salaada maqribo kaasi ku dhaafi jirta iyagana waxaan ku dardaarmaynaa inayna salaadu ilaalisaan oo dad islaama nahay masaajidka inay ilaaliyaan oy markay ciyaartaba dhammaystaan awal iyagoo qarbaqarbay goor dambe loo iman jiray masaajidde waa loo soo dhaweynay ka faa'iidaysan ilaahay ku caabudaan bataan baryaynaa yaan ka rajaynayna intaa kadib mar labaad iyo mar saddexaadba ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadle maanta oon maaragtay furayno masjidkan cusub ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ciddii la soo baxday inay maskiidkaa binayso iyo inamada sheekh cabdiraxmaan hogaaminayo ee iyaguna dhisay iyo intii la soo baxdayba waan u ducaynaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala u barakeeyo cumriga u barakeeyo awlaadda u barakeeyo maalkiisa waan u ducaynaynaa qodobkaan baan odhan lahaa insha allahu tacaala ninka maaragtay man bana masjidan masaajid dhisa bana allahu beytan fi ljanna jannada maaragtay beyd isagana looga dhisaa buu nebigu yuri sal alayhi wasalam ama haba ahaato cufka yara shimbirtu oo kale buu nebigu sal alayhi wasalam ninkii waxaa wax leeg masjidka ku biirsadaa ilaahay jannadu maaragtay isagana uga dhisaa guri ilaahay guriga jannada ha uga dhiso siciid abiib iyo intii lamid ee iyaguna jagada bixiyeen iyo abiib rooblana waan u ducaynaynaa iyagana eelkii bixiyey halkan ilaahay isagana ha u naxariisto aabbihii iska laha halkan iyo inamada siciid hogaaminayo ee iyaguna dar ilaahay ula baxay jagadana ilaahay iyagana miisaanka xasanaadka ugu daro isagana allah ka abaaliyo innagana mas-uuliyadun bayna saarano inaan camirno masaajidkan inamaa yacmuru masaajida lilah ama masaajid allah masaajidda ilaahay waxa uun camiraa ciddii ilaahay rumaysa iyo rasuulkiisa marka inaguna boon waxaa laynooga fadhiyaa inaan maskiidkii camirno oon ku camirno daacatillah ilaahay maaragtay daacadiisa digrigiisa salaadiisa aan ku oogno dee camirka masaajidka waa la garanaya amuuruhu ku koobnaa ama ilaalinta nadaafadiisaba ha ahaatee camiraadda amuurahaasaa lagu soo ururiyaa marka inagana boon waxaa laynooga fadhiyaa inaynu camirno ciddii maskiidkan dhismihiisa sababta u ahayd iyo ciddii dhistay oo u horeeyo haadi maxamed aada iyo aad baan ugu mahadinaynaa waxaana leenahay miisaanka xasanaadkiisa allaha dhigo fadligaa weyn ee halkaa annagana nooga muujiyey maskiidka oo aada loogu baahnaa oo qaryadan ay u baahnayd oo weliba jaanibkan ay u baahnaa oo ka madhnaa intii ka qayb qaadatayna kolley ay jimciyaddaasi ay u horeyso oo soo hogaamisay khayrka dhammaan nin walba magaciisa iyo mansabkiisa ayaan ugu mahadinaynaa sidoo kale waxa aan ugu mahadinaynaa walaalaha iyo rag nujuum ah oo saciid iyo ibraahim iyo duriyadda barakaysan ee ree cabiib oo ugu deeqay halkan inay maaragtay waxa weeyaan maskiidka ay siiyaan buqcadaasi oo au noqdo meel ilaahay boos u noqoto ay ummaddu kusoo yirato ilaahay kitaabkiisana lagu barto ilaahayna loogu cibaadaysto oo salaada lagu oogo qur-aanka lagu barto waa wax ilaahay loogu mahadiyo weeyaan waan ugu mahadinaynaa waxaan leenahay iyagana ilaahay miisaanka xasanaadkiina ha dhigo waalidadii halkan aabbaha ka ahaa ee ka tegeyna waxaan leenahay
ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto abiib rooble iyo xaajiyadii barakaysnayd faadimo awgeele ilaahay ha u naxariisto runtii maanta waxaanu joognaa munaasabad aada u qiimo badan waxaynu xadhigga ka jaraynaa beyd ka mida beydadka alleh kaasoo inoogu soo biiray masaajidadii degmadu horey u lahaayeen oo noqonaya kii 9aad baan filayaa runtii meel u baahnayd dhul u baahnaa xaafado u baahnaa ayaa runtii miskiidka laga dhisay muhiimad waxa weeyaan inaynu u ducayno ciddii la baxday miskiidkaas ciddii noo dhistay ciddii dhulka miskiidka laga dhisayna ee bixisay ayaynu rabnaa inaynu maanta u ducayno kulley munaasabadda intaasay qiimeegu tahay ilaahay ka isaaysiiyo kuwii la soo baxay awlaadana ilaahay u barakeeyo kuwii noo dhisay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro kuwii waalidiintoodii u dhisay oo runtii waalidiin degmada boon hormood u ah bay ahaayeen oo ka shaqayn jiray danta bulshada ilaahay ha u naxariistee ayuu roobliye faadmo awgeele ilaahay baa mahadle halkan isugu keenay masaajidkan barakaysan de wax ama meel laga soo qayb galo furitaankeega xafladeeda waxa ugu khayr badan masaajidka sida aayaddii sheekhu inoo sheegay iyo xadiiskii sheekhu inoo sheegayba man banaa lilaahi masjidan bana allahu baytan fi ljanna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii guri ama masaajid ka dhisa masaajid dhisa ilaahayna jannadu guri uga dhisa marka waxaan leeyahay uun dadkii ka qayb qaatay ee dhulkan bixiyey ee dhismahana dhisay gurigiinii aakhiro unbad dhisateen gurigiinii aakhiro unbad dhisateen meel loo sahay qaatana aakhira ugu manfac badan sahayna waxay ku anfacdaa un maalinta aakhiro unbay ku anfacaysaa marka iyakana waan u ducaynayaa waalidiintii halkan laga dhawaajiyeyna ilaahay sadaqa maqbuula ha uga dhigo tugaadha allah ha uga dhigo nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay in ayna gu-in 3 camal oo sadaqa tujaariya ay ka mid tahay tanna waa sadaqa jaariya ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro qabrigana allah ha ugu nuuriyo intaa kadib reeboon waxaan odhan lahaa uun masaajidka ha la soo camiro cibaadaha lagu soo camiro cilmiha lagu soo camiro tacliina lagu soo camiro